halkani waa Wadani News. marka u soo laabto goobtii uu qarxu ka dhacay gaariga qarxay nooceed ku tilmaami lahayd hadii aad xataa haraagiisii waxaad aragtay dadkii dhaawaca uu soo gaarasay sidee gurmad loogu sameeyay hadda goobtii baad igala soo hadlaysaa inkastaan arkan baabuurka laakiin dadkii iga dhowaa oo daasha wax ku dhaceen u dhowaa ilaahay si ka badbaadiyo oo caawad qaba ay iigu sheegeen noociisa inuu ahaa gaari baabuurka la yidhahdo saarasta gaari waxba lagama arki karo oo marka laga reebo motorkiisa qaybo ka mid ah iyo barada diban mooyaane waxba lagama arki karo waxaa kaloo marka dadka dhaawaca uu soo gaaray inkastoo dhaawacyadu ay fudud yihiin meesha waxaa ku yaala xarun caafimaad markiiba dadkii ugu horreeyay ayaa u loo daabuday loo dadguray hadda aan kula hadlay weli waxaa socda ururinta hanaadiga dadkii rayidka ama dadkii kale ku dhintay meedadkooda ee waddada yaallaan waaya marka gaariga dhinacuu kugula beegmaa intuu ku dhacay marka uu qarax uu sameynayay wuxuu ka yimid wadadan naasaab loo daadamo wuxuu ka yimid wadadan kale ka imaata xaruntii hore ee nabadsugudu ay lahayd ee godka jilco inkastoo hadda aanan sheegi karin laakiin marka aan ka tusaale qaadana cabdirasaaq meeshuu ku dhacay gaarigu waxa weeyaan guriga hooyooyinka iyo tiyaatarku way isku soo horjeedaan waxaa ku yaala isgoyskaas waxaa bar control uga samaysantaa uga dhisantaha ciidan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxteeda meeshaas marka meesha uu ka dhacay burburka iyo meesha markaa siyaasada marka dhinaca siyaadka la fiiriyo uu baabuurku ka qarxay waxaa muuqanaysa inuu ka yimid dhinaca godka jilcow inkastoo hadda aan toos u caddayn karin oo aan dhigi karin meeshaas ku laakiin marka loo fiiriyo qiyaasta iyo siyaadka baabuurka uu ku jiray marka loo eego wadada ka timaada qorax ka soo dhinaca godka jilcow wadadaas ay isleedahay waaya ugu dambeyntii marka jawigu inkastoo weli uu kacsan yahay sida aan ka dareemayo teleefoonkaagana uu soo qabanayo dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay inteed ku qiyaasi lahayd yaa badan والله شاف والله ما قياسي كره ما كان لامي قاعد تستو اما فنانك وقبع هذا يقول وين كفنانك تستو لامي قاعد فركورتيسا الا لقد جارو على هذا حاول تاكو وحيا لا دب ميلك تدخلن ايا يلا ورنت على قوتين كده قف عنك وانت قف لبعدا طيب كميده تسجل فيسا طيب قارك السنه قارك الضمب مركا قاركود ويبا ايوا في ايا عندك جبنيه مركا نفس الكفر تسجيل كامل waayahay burhaan ma jiro qof soo kulmi ka tirsan oo daawaca kala reebo muraayadaha iyo darbiyada ku soo dumay qofka uu saameeyay aniga aan ka mid ahay anigu waxaan fadhiyay markaas oo ku jiro shaqadaay xafiiska qofka bulshada lagu adeego reedi kulmi qaybta soo kiyala dhammaan wixii muraayadaha iyo agabkii oo dhan waa nagu soo daateen marka daawacyada darbiyada ku soo dumay mooyaane qof kale daawaca isbitaal yaalla ma jiro waaya burhaan marka u soo laabto goobtii uu qarxu ka dhacay gaariga qarxay nooceed ku tilmaami lahayd hadii aad xataa haraagiisii waxaad aragtay dadkii dhaawaca uu soo gaarasay sidee gurmad loogu sameeyay hadda goobtii baad igala soo hadlaysaa inkastaan arkan baabuurka laakiin dadkii iga dhowaa oo daasha wax ku dhaceen u dhowaa ilaahay si ka badbaadiyo oo caawad qaba ay iigu sheegeen noociisa inuu ahaa gaari baabuurka la yidhahdo saarasta gaari waxba lagama arki karo oo marka laga reebo motorkiisa qaybo ka mid ah iyo barada diban mooyaane waxba lagama arki karo waxaa kaloo marka dadka dhaawaca uu soo gaaray inkastoo dhaawacyadu ay fudud yihiin meesha waxaa ku yaala xarun caafimaad markiiba dadkii ugu horreeyay ayaa u loo daabuday loo dadguray hadda aan kula hadlay weli waxaa socda ururinta hanaadiga dadkii rayidka ama dadkii kale ku dhintay meedadkooda ee waddada yaallaan waaya marka gaariga dhinacuu kugula beegmaa intuu ku dhacay marka uu qarax uu sameynayay wuxuu ka yimid wadadan naasaab loo daadamo wuxuu ka yimid wadadan kale ka imaata xaruntii hore ee nabadsugudu ay lahayd ee godka jilco inkastoo hadda aanan sheegi karin laakiin marka aan ka tusaale qaadana cabdirasaaq meeshuu ku dhacay gaarigu waxa weeyaan guriga hooyooyinka iyo tiyaatarku way isku soo horjeedaan waxaa ku yaala isgoyskaas waxaa bar control uga samaysantaa uga dhisantaha ciidan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxteeda
meeshaas marka meesha uu ka dhacay burburka iyo meesha sabira marka qiyaasna marka dhinaca saadka la fiiriyo uu baabuurku ka qarxay waxaa muuqanaysa inuu ka yimid dhinaca dadka jilcow inkastoo hadda aan toos u caddayn karin oo aan dhihi karin meeshaas ku laakiin marka loo fiiriyo qiyaasta iyo saadka baabuurku uu ku jiray marka loo eego wadada ka timaada qorax ka soo dhinaca dadka jilcow wadadaas waaya ugu dambeyntii marka jawigu inkastoo weli uu kacsanyahay sida aan ka dareemayo teleefoonkaagana uu soo qabanayo dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay inteed ku qiyaasi lahayd yaa badan والله هذا كان هو لما قياسي كره مثلا لامي استاكو اما اتمنى كوغا بخدو عبر هوين كبنك استاكو لامي قياسر كورتيسا الا laga gaaro taalada xawtaako waxa yaala dad miidka dad badan ayaa yaala oo runtii aan aqoonsan karin qof gacan go'an tahay qof laba caga qayb kamid ah dadka jirkiisa qaar ka dambe marka qaarkood waliba iyagoo fiicay ayaan dugsiga oo gubanaya marka telefoon dadka ka bixin ma jiro qof soo kulmi ka tirsan oo daawaca kala qeybo muraayadaha iyo darbiyada ku soo dumay dadka oo saameeyay aniga aan kamid ahay anigu waxaan fadhiyay markaas oo ku jira shaqada xafiiska qofka bulshada lagu adeego eradi kulmiya qaybtaas ku yaala dhammaan wixii muraayadaha iyo agabkii oo dhan waa nagu soo daateen marka daawacyada soo dumay yani qof kala daawaca isbitaal yaala ma jiro waaya Ibrahim marka u soo laabto goobtii uu qarxu ka dhacay gaariga qarxay nooceed ku tilmaami lahayd haddii aad xataa haraagiisii waxaad aragtay dadkii dhaawaca uu soo gaarase sidee gurmad loogu sameeyay hadda goobtii baad igala soo hadlaysaa caadada horta inkastoo aan arkin baabuurka laakiin dad iga dhowaa oo meesha wax ku dhaceen u dhowaa ilaahay si ka badbaadiyo oo caawbad qaba ay iigu sheegeen noociisa inuu ahaa gaari baabuurka la yidhahdo saarasta gaari horta waxba lagama arki karo oo marka laga reebo motoorkiisa qaybo kamid ah iyo baradi siban mooyaane waxba lagama arki karo waxaa kaloo marka dadka dhaawaca u soo gaaray inkastoo dhaawacyadu ay fudud yihiin meesha waxaa ku yaala xarun caafimaad markiiba dadkii ugu horreeyay ayaa loo daabulay loo dadguray xataa aan kula hadlay weli waxaa socda ururinta haraadiga dadkii rayidka ama dadkii kale ku dhintay meedadkooda iyo waddada yaallaan waaya marka gaariga dhinacuu kugula beegmaa intuu ku dhacay marka uu qarax uu sameynayay ma wuxuu ka yimid wadadan naasaab loo aada mase wuxuu ka yimid wadadan kale ka imaata xaruntii hore ee nabasugudu ay lahayd ee godka jilco inkastoo hadda aan sheegi karin laakiin marka aan ka tusaale qaadana cabdirasaaq meesha ku dhacay gaarigu waxa weeyaan guriga hooyooyinka iyo tiyaatarku way iska soo horjeedaan waxaa ku yaala isgoyskaas waxaa bar control uga samaysantaa ugu dhisantaa ciidan ka tirsan ciidamada ilaalada madaxteeda meeshaas marka meesha uu ka dhacay burburka iyo meesha sabira marka qiyaasna marka dhinaca saadka la fiiriyo uu baabuurku ka qarxay waxaa muuqanaysa inuu ka yimid dhinaca dadka jilcow inkastoo hadda aan toos u caddayn karin oo aan dhihi karin meeshaas ku laakiin marka loo fiiriyo qiyaasta iyo saadka baabuurku uu ku jiray marka loo eego wadada ka timaada qorax ka soo dhinaca dadka jilcow wadadaas waaya ugu dambeyntii marka jawigu inkastoo weli uu kacsanyahay sida aan ka dareemayo teleefoonkaagana uu soo qabanayo dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay inteed ku qiyaasi lahayd yaa badan والله هذا كان هو لما قياسي كره مثلا لامي استاكو اما اتمنى كوغا بخدو عبر هوين كبنك استاكو لامي قياسر كورتيسا الا laga gaaro taalada xawtaako waxa yaala dad miidka dad badan ayaa yaala oo runtii aan aqoonsan karin qof gacan go'an tahay qof laba caga qayb kamid ah dadka jirkiisa qaar ka dambe marka qaarkood waliba iyagoo fiicay ayaan dugsiga oo gubanaya marka telefoon dadka ka bixin waayahay burhaan diiri faarax ayuu ahaa oo ka mid ah wariyaasha radio kulmiye muqdisho oo goobta uu qaraxu ka dhacay si toos ah u joogay isla markaana qadka telefoonka ugu waramayay barnaamijka saanka raadiyaha ee ka baxaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha soo bogsiyo wararka ugu dambeeya halka naga soo gaarayeen waxa ay sheegayaan in hay'adaha dhanka gurmadka u qaabilsan dawladda Soomaaliya ay si weyn uga qayb qaadanayaan daabulaada dadka uu dhaawac soo gaaray si loo geeyo isbitaalada caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho caafimaadkooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha bogsiyo ayaan leenahay dhamaantood halkani waa Wadani News